waxaan caddaynayo halkan idinka caddayna dadka kuraasta laga iibinaya kan iibinaya iyo dilaalka iyo ka iibsanaya dhammaan halkan aan idinku hayo halkan aan idinka tusaya ninka doonaya wasiir maaha dhulbahante maaha fiqishinina maaha warsangelina maaha soomaaliya ark wakaa kaayaa garanaya cid garanaysaa ma joogto bartuu fadhiyaa barta waa kaa tusaya kuwaa ma aragtaa annagu warbixin dhammaystiran baan keenaya axmed guray wuxuu ahaa ninkii gaalo ceelinka baray xabashi ninkii ceelinka baray buu wuxuu ahaa nin soomaali qaali ku ah nin soomaali weyn nin qaali ku ah buu ahaa wuxuu ahaa nin bartira ma uu noqdeen qaali xabashina ceelinka ma haddaanan annagu joogin oo aan tumaali jirin ma ahaadeen nin qaaliya qaalinimada annagaa ka dhignay waxaa lagu dagaalamay isagu jabhad buu ahaa jabhadna meel wax ugama soo degi jira saadka la keeno berbere un baa laga heli jira waxaa la qabanayo lala tegayana berbere un bay ka imaan jira waagaa xabaalo tumaalood haddaad maqasheen halkaasaanu annagu deganay magaca iyaga guud ama waxqabadka iyaga guud waxaanu ka soo galay sayda magaalada layaabaan ka soo galay halkaasaanu degnay waxaa lagu dagaalamay oo lagu dagaalami jiray qoriga la yaaho garmaqaad waa geed la qoray waxaa lagu qoraa gudin labada madax baa loo dhuubaa waa geed weyn oo adag marka ninku kugu yimaado waa loo qotomiyaa dabadeedna wuu galaa saas uu galaa waxaa loola jiray garmaqaad waxaa ku xigay seefta annaga tumi jira berberaa loo soo doonan jira qaybta bulxaar baa laga qaadan jira tumaaladaa tumi jira waxaa la samayn jiray hooto layaa hotaligada qofka markay gasho dib uma soo noqoto lagama soo gooye xagga kalaa looga saara naftu saasay kaga baxay waxaa raacday waran baa raacay annagaa tumi jira meesha hub ma jirin laguma dagaalamayn intaasaa lagu dagaalamay waxaa jiray qori la yaaho maar qasharrada dib baana loogu soo celin jira tumaaladaa loo keeni jira iyagaa samayn jira dib u samayn jira afridda gaar bay u samayn jira baaruuddana gaar bay u samayn jira qasharka meesha irbaddu kaga dhacdana gumac baa la yahay intii la soo saaroo la toosiiyo baa la macbili jira dib baa loo habayn jira halkaa xabbo ilaa 20 jeer bay dhici jirta 20kaabaa markay dhacdo dib baa loo soo celin jira dib baanu u samayn jira haddaad maqasheen axmed guray waa lala dagaalamay soomaaliya waas tidhaahdeen axmed guray baa kiciyey annagaa kicino daaha dabadiisaan fadho technicalii baanu intii daraawiishta sayid maxamed cabdilla xasan in dheer garad buu ah nin waxyaqaano haaweydan maanta joogto kale aan ahayn buu ah hub ma haysan hub yaryar baa la keeni jira hubka yaryar wuxuu ahaa riisha dabajaar alamaan ursardheere dhumbuur qori la yidhaahdo jurjirgeed oo xaqiiq markaan yeesho gacantaydaasa ku sameey waa ku soo dilooday waa ku iibsaday magasiinaan ka sameeyey waan dhammaystir waana rasaastii dhacaysay qorgista qorigu markuu jabo ee uu xumaado annagaa bedeli jira hadday reebadu xumaato haddii toorotooru xumaado haddii dhuuntu xumaato haddii beeralku xumaado haddii magasiinku xumaado annagaa damcaal nin walooba waad ogta tumaaluhu dheeman bay ka ahaayeen adduunka ina cabdilla xasan 8 wuxuu qaaday sanadkiiba waxaa la qaadi jiray 100 nin baa la qaadi jiray oo daraawiish waa la soo xajisiin jiray 100kii ugu horreeyey in cabdilla xasan qaado 5 baa ku jiray annagoo tumaal ah awowgay xaaji jaamac baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa awowgay cabdigiridhe oo kuwaasan hadda dameer joog
ragga caynkaasee tumaalada ee aqoontaa leh baa raggani maanta ka firqaba iyaga oo bartay atomiko iyo alaab casri oo cusub bal marka hore aad dadku inuu isfahmo yaa fiican annagu dagaalka madnuuc baanu ka ahay waayo haddaanu dagaalka aadno oo qorigaanu sidnaan laga xumaado dee cid soo samaynaysaa ma jirin waa la qabsanayaa meesha annagu waxaanu dib u ahay waanu daaha dabadiisa ugu jirin technication baanu ahay waxaa naloo ilaalin jiray sida boqorrada loo ilaaliyo kiin baanu waddanka ka ahayn kiin lama eegi jir lama xumayn jir walaal waxaan ahayn lama oran jir waayo waxaad ku garanaysaa soomaali dhexdeeda ku yeenimayo waxaanu lahayn dowladdii soomaaliya jagooyinka ugu sarreeya ugu qiimaha badan ugu wanaagsan liibta soomaaliyeed kuwii soo hooyey baanu ahay madaxweyne ku-xigeenka koowaad maxamed cali samatar buu hadda waa in adeerkeeda waa nin tumaada kow wasiirka gaashaandhigga waad degeystaan caalamka waad ka daawateen intiina soo kacday intii hore dee ku jirtayna dalka waa garanaysa waa maxamed cali samatar waa in adeerka waa nin reer ciise caddaa marka soomaalinimada laga tago abtirsiin yuulooya waa nin reer ciise caddo halkaasu ka baxaa wuxuu ahaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad marka labaad wuxuu ahaa wasiirkii gaashaandhigga wuxuu ahaa ninkii xabashidii iswaari jirtay soo dhigtay libaaxa afrika soo dhigtay ninkii iyo heer bisadeed baanu ku soo celin ee jaanta loogu tumay bo dee waa in adeerka alxamdulillahi rabbilcaalamiin warshadaha dalka soomaaliya ka dhisay in adeerkay baa dhisay waxaa dhisay nin la yidhaahdo maxamuud jaamac yaaquub baa dhisay warshadda meesha la yaa kismaayo ee hilibka isagaa dhisay warshadda balcad isagaa dhisay warshadda jawhar isagaa dhisay warshadda mahadday rasaas samaysa isagaa dhisay waxaan imaanayaa isasi gobollada sool sanaag iyo cay annagu dheeman baanu ka nahay lama tageen dagaalka maalintii lasa garaadad waxay ku faanayeen waxaan gumays baanu joognaayo dib baanu celinayna dee ma aydan celisiin riwaayad baad haysaan garaadow dib ma aydan celiseen ciidanka haddaan annagu aanan daaha joogin gaadhiga qorigu goosta iyo kala rakibayo haddaanan markiiba idin soo gaarsiinayn annagu aan magaca tumaalood idin soo gaarsiinayn halkaana lama tageen burcana lama haabsadeen halkanna canjiid lama dhaafeen xaqiiqadaa doonaysaan waa marka xaqiiqda lagu wada hadlay canjiid lama gaadheen haddaanan annagu daaha dabadiisa ku jirin waxaanu dheerayn dadka waxaanu dheeray soomaaliyeed ama sool sanaag iyo cayn waxaanu dheeray waxaanu samaynaynay hubka ilaa iyo nab hadeerna aanu gacanta ku haynaa samaynayna waxaanu bixinaynay geela waxaanu bixinaynay ariga waxaanu bixinaynay birta wax caalamka bal soo maro oo magaalo walba eego bal dhul walba eego mindi laba afle dee tumaalaa keenay caalamku mid af keliyaa bay keenaan waxaa nagaga dhintay oo halkaa nagaga baxay 5 nin baa nagaga baxay 5 baan laga xilan hadda Soomaaliland ay gacanta ku haysa oo maxaabiista ku jira laascaanood gudaheeda laga qabta 5 sida dadka kale bay u dhimanayay ama loo qabqabanayay bay ka mid yihiin kamaan xumina waa alxamdulillah annaga haybad bayba noota in qaarna laga laayo qaarna laga xiro guriga garaadka waxaa la yidhi maxaa jaamacu ka hortaagay guriga garaadka waxay hortaagay garaadku isaga hadlay garaad jaamac garaad cali garaad jaamac garaad ismaaciil gol ka hadlay halkaasuu warqad soo taagay halkaa buu warqad soo taagay wuxuu yahay dagaalka ninkii ku dhintay ninkii ku dhaawacay ninkii maxaabiis lagaga qabsaday berri waxaa ka soo korla halkaa isagaa sadkeeda leh isbixin weyne taa garaadku been buu ka sheegay intaa annagaa ku dhiman kursiga iyagii ma hayno midaan dagaalka gelin oo aan cid kaga dhiman oo aan maal ku bixin oo aan rasaas keenin oo aan raashin keenin oo aan taariikh meel kaga soo gelin wuxuu keenay baa kuraastii qaatay anigoo intaas soo marayna ma arag waa la qaabilay isaga aniga layma qaabilin golaha la soo fadhiisiyo guri baa la siiyeyo wuxuu doonayaa laga bixiy aniga midna ma arag anaa ismaamulay kaan hadda ka hadlaya baan ku soo degay kiina waa joogaa 2 bilood baan ku maray laygana hoos qaadi way horta ninka garaadka ka warqabo
iyo guriga maxaa ka hortaagayo taasaa keentay waxaan soo saaray anoo cabanaya oo aan waraaqahaasan soo dhejin waxaanu ku talagalnay inaan mudaharaad qabano afarta madaxda ugu sarraysa taliyaha qaybta taliya ku-xigeenka madaxa sare ee militari ciidanka militariga kan amniga dhammaan waa la yeelay halkaa la iigu yeelay waxaa leeyahay wax mudaharaada ma qaban kartid oo silmiya anna waxaan doonaya inaan aho 100 nin oo mudaharaadka ilaalisa 30 gaari baan kaxaysanayaa ilaaliyo oo nabadgelyada suga ee keena waxaa leeyahay waxaa mudaharaadoo la qabanayaa meesha ma jirto fooda laga sameynaya dee waayahay baan hadda fooda nocoso waraaqahaygii waa kuwa qarashkayga aan bixiyeyna waa dad buu noqda cirku mar $20,000 baa igaga baxay hawsha $20,000 xoolaa baa igaga baxay hal riyaal igama soo gelin maamulka la samaynayo intaa waxaa dheer waxaan u tegey xaakinka guud shiikha guud ee dalka ee SSC ee la yidhaahdo aadan weli baan tegey aadan weli waxaan ku yidhi rasuul baa tahay waxaa tahay rasuulkii SSC loo soo diray annaguna aadan weli waa saxaabtii baanu nahay waraaqdan iga qabo waa ku dacwoonaynaa xaqayagii baanu doonaynaa waxaanu rabnaa booska rasuulkaas ku jirta annana asxaabtii baanu nahay eelaanda ajiibto nagana qaado ilaa iyo saacaddaa wax waraa nagula soo celin warqaddiina waa siinay sidiina waan looga dhaqaaqay waxaan kuugu soo celinaya oo kuu sheegaya halkan xubnaha lagu qaybi ee aanu ku qaybin ee aanu wasiirada ugu tagnay ee aanu ugu tagnay haddii badan gabadha xildhibaanada sanataradda ee aanu ugu tagnay ninka la yidhaahdo madaxweynihii hore ee khaatumo indhasheed ee aanu nin walba u maray kuraastu inay iibta oo la kala iibsaday waxaanaanu doonaynaa wax iibsanba inay yihiin waxaan caddaynaya oo halkan idinka caddaynaya dadka kuraasta laga iibinaya kan iibinaya iyo dilaalka iyo ka iibsanaya dhammaan halkan aan idinku haya halkan aan idinka tusaya gogol baa lay markhaatidu wasiirada hadda la dooran doono labada xubnood ee ugu sarreeya lacagtoodii waa la haystaa ninka doonayaa waa ka beelo baa lay maragiisi fogaaya ninka doonayaa wasiirka ma aha dhulbahante ma aha fiqishinina ma aha warsangelina ma aha soomaaliya arka soomaali weynay arka halkuu fadhiyo meeshuu fadhiyaa ka gudubkaa waxaan ku tusayaa oo aan markhaati ka dhiganaya ragga kuraastayada iibsaday kuwa kalena iibinaya ka macalhayaha iyo ka dilaalka iyo ka doonaya bal hadda inaad garataan iyo in kale iyagana waa kuu soo gudbinaya halkaa ka daawada SSC halkaa ka daawo islaamku halkaa ka daawo adigu sheeg dhageyso nin walba arag wakaa kaayaa garanaya cid garanaysaa ma joogto bartuu fadhiyaa barta waa kaa tusaya kuwaa ma aragtaan annagu warbixin dhammaystiran baan keenaya waad aragtaan kuwaas waa kuraastii iyo kii iibinaya iyo kii dilaalka waa wada kuwa kaa kale markii hore aanu tusay anigu ila hadla waa 10 kun buuya kursigu haddaad jaamaca u baahan tahay soo qaado lacagta annagaa gadayna hadda ma aha SSC ma aha haddii maakhirna ma aha hadda ogaada soomaaliya fadeexadda halkaa ka joogta anigu mid walba golahan soo dhigay kuwa ka daran baan keenaya haddii ilaahay yidhaahdo war saxaabka ka dambe aan qabtay intaa in ka daran oo wada xaqiiqa oo aan muran lahayn oo kiyaara yaa mallaanka soo dhigaya wabilaahi tawfiiq